اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحويان هلكن شر جرائد كان كو عين وحويان وقبلدا أوضل إيه سلل إيه قبلي وحنا كهاللينا الرمان أوضل وأيضا هدي كم بتاعين بتقول الدهرة يوان قوصنا إذا مظاهرات هذا نستمجوا قال لك دقي سيدا درتي دورتي وحويان دولة السومالي الآن markii gooni isku taagtay ragii ugu hor dhawaaqay waxay ahayd Sheikh Sultan Maxamed Jaamac Samatar Sultan Sheikh Muuse Goodaad iyo Sultan Guri sida darteed ma khilaaf fikradda Soomaaliland waa muqaddas kamid baan nahay oo sida darteed goosigu ma jiro ta kale labaad waxa weeyaan arrimaan soo noqonaya si awdal ay kamid tahay maxaa ciidamo loo keenay iyo maxay loo keenay horta ciidamada inaga u yeedhnay ciidamadu meeshii looga yeedho bay tagaan maxay ahayd buu hoodle ciidamo badan baa dul fadhiya waana Soomaaliland arrin gooni ay galeen ma jirto nabadgelyo darro darteed baa loo geeyay awal bayna lama joogeen inaga u yeedhnay intaan xaasilaynay inay nala joogaan xaq way u leeyihiin haddii nabadgelyada suganana way iska tagayaan لكن سمرك اللي لين حوي مادين تمر لف باك جرتا تانا صدابان واركيا وارتكلين لبعض وحوينا بتقليدو هدان هو البحر يندى عن شره وحكب بدلنا السماين إنه مرة تبوه هذا جامعة هذا نسكحنه جامعة ذي تقال اسكومي مريان اسكول هذا نسكحنه أنت الشر كل كتلا قادلو سلا انتينا هي وحلاه عنو واللي بتقليدنا مقدس كنت يسمو سلطان كهالكا تجينا وحلينا هاي سلطان واحد دير له هذا وقاشة وملاك ودانتو كاير حساب ير دير له أما هو كلا دير له هذا إن هذا سلطان لما بحض وير هذاك تاي يعني عقل جيجا وحوي الحق بدن بسوية أنا وصوك هو يا هذا وأنا بوير رالي هالليجا هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka hore waxaan salaamayaa marti sharafta fadhida xuqaasha dhalinyarada odayaasha xeer beegtida saxaafadda dhammaantood waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ama bacd anigoo ku hadlaya magacayga anigoo ajiib caaqil daahir cismaan cilmi kuna hadlaya magacayga magaca uqaasha beelaha maxamed case ee shanta degmo gabiley luqaya baki sayrac iyo boorama waxaan cadaynayaa halkan ka cadaynayaa maanta oo taariikhdu tahay 17kii bishii 12aad 2014 arrimaha sidoo uu sheegay caaqilkii ugu horeeyay wafdiga badan ee jooga ee dawladda xukuumadda ka jooga ciidamada yimiday dadka la xidhay wuxuu horta shaqo dawladeed weeyaan Soomaaliland maanta wax lagu gorgortamayo ama laga wada hadlayo ma aha Soomaaliland dalka aan deganahay la yiraahdo mabdi'a aan qaadanaa la yiraahdo magaca Soomaali waa jinsiyaddeena laana waa dhulkeena ciddii intaa ka baxaysa horta waddankaysa ka tegaysa waxaan leeyahay Soomaaliland 25 jirsatay 25 sano ay ku tahay maanta 25 ka sano wixii lagu dhaqayay ee wiilkii ku dhashay maanta ku dhalay wax laga hadli karo oo cidi ka hadli karto oo cidi gobolka gaar u sheegan karto oo cidi qadiyada ka turjumi karto bulsho weynta goboladan سال الأوضل يقبلي عد كترجمة قرتها كل جيل بجرته مسير كوجا يا كرامة دودا يا شرف دودا أيوة ما أنت رجع حلك قاضي كل واقع ما أنت وحي رسين وليهين أنا جوا عن أرضي دودي
ardayduna macallinka ma bedesho cid beeni kartaana ma jirto Somaliland waa wax muqaddasa waa waxan qaadanay waa waxan raalli ku qaadanay ogol ku nahay aan ku caanamaalay nabad aan ku nahay karaamadeenna iyo sharafteena kamid tahay huwanahay Somaliland Soomaaliduna waxa jira gunti xaggeen wax gunti la gasho way ka weyntahay gobolada galbeedka Somaliland wax qof degta ku qaado way ka weyn yihiin waana eray dastuuriya oo adag marka la leeyahay waan goosanay aad baan uga xumahay nasiib wanaag suldaanka meelka kama dhacayo beesha uu yahay meelka kama dhacayo laakiin waxaan leenahay waxa la kala leeyahay iyo waxa aan wada leenahay aynu kala ogaano beelaha halkan fadhiya cuqaashoodu ay ka joogto 5 degmo ee gobolka Awdal weli meel arinka lagu hayo oo kale manay arag manay maqal habeen dhaweey waxaan arkay qolol la yiraahdo Khaatume State oo suldaanka taageeraysa ayaduna meel ugu jabay taageeraysa wax leenahay warida loo tacsiin lahaydeen hanagu taageerina jabniinkiina asxaabaynu hayno isku USB baan ahaan jirno niman isku qaraan hayne looga tacsiiyay laakiin hanagu taageerina wa billahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا أمدا قابتنا سقوط من شركة جرايد كقبتي أيا سلام يا مرفوره مر لباتك وحن دافي قضية اللي هاد ليو وقضية جود أو صومال لنا قبل كأوضل iyo selal iyo gabiley waa isku gobol qura waxa weeye Somaliland noolaatan leedahay marka hore waa muqaddas gorgortanna male jiritaankeeda Somaliland gorgortan male nabadgelyada baayactan male laga gorgortami maayo waa hooyadii Somaliland weeyaan gobolka Awdal halkii laga aasaasay weeye halkii laga aasaasay maanta in laga dhigo haddana halkii laga duminay suurtagal noqon mayso marka waxaan aad iyo aad u taageerinaa muxuu ahaa oon u diidanahay nin waan baxnay waan goosanay kelmadahaasi dhagahayagu maba maqli karaanba annagu awal ila aakhir waxaanu taageerinaa midnimada Somaliland waa muqaddas wax laga gorgortami karo marka rag hadal yaqaan kaaga horeeyo waad yar bashbashlaysaa marka waxba la yima reebinay qaashi iga horeysay baa hadalka dhamaysay kuwa inta yiraahdeen ma ku taageersanahay waxaan leeyahay anigoo ah chief caaqil Xasan Caynaan Buux Xasan Fanaan loo yaqaano waxaan leeyahay muxuu ahaa gorgortan male Somaliland wada jirkeeda iyo midnimadeedu mid laga gorgortamaya maaha ilaa nihaya cidii baxaysay nabadgelyada khalkhal inay geliso doonaysa de waa nasiibkeed haday ku guuleysato waa isku day laakiin wax suura galaya maaha ciidamada markaan ka hadlo waxa weeyaan ciidamadu Somaliland xad male meel calaamadsan oo gaarihi ma jirta ciidamada dalkay ka wada shaqeeyaan mas'uul waxay ka yihiin wax alla wixii khalkhal gelinaya Somaliland midnimadeeda way tagayaan meeshay doonaan meel alla meeshay khalkhal ka jiro way tagayaan nabadgelyaduna mid la isbaryaya maaha waana soo marro maanta way arag ban ka nahay muxuu ahaa dagaal wuxuu yahay iyo muxuu ahaa colaadi waxay tahay waan garanayna
marka waxaan leeyahay waxaan ku gabagabaynayaa hooyo ilma jaqsiin mayso caafimaad cid la daweyn maayo jaamacada ma jirayaan wax alla wax jira ma jirayaan bini aadamka sidiisaba nabad noloshiisu waa nabad ninkii diidaana isagaa og salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu xuseen aar cabdul xuseen aar guuleed wey waxaan leeyahay nabadgelyo guud ahaan nabadgelyaan leeyahay awdal nabadgelyo Soomaaliland nabadgelyo danaha Soomaaliland reer awdal leeyihiin si wanaagsan wax ku weydiistaan baahanayna u baxbaxan oo ay madaan oo magarada wax doonaan kuma wanaagsana laakiin waxaan u leenahay danaha aan u leenahay hadaan reer awdal nahay sideedaan wax ka doonayna ma dhaafayna hadda wax naga maqan yihiin waa weydiisanayna dawladda Soomaaliland leeyna ka midnahay waan weydiisan karnaa laakiin buu kuma weydiisan karo buuguna inaan ku weydiisanna ma doonayn walaalaha ayayna ka yaga naga baxayna waxaan u leenahay waanu la hadli karnaa waana soo ceshan karnaa waana ina ka yagi sidaan Hargeysa arkaysa dhulkan uma arkayna anagu haddaan reer awdalna dhul iska qabo iska nabadgelyo wanaagsan baanu arkaynaa dee reer magaraysa buuq kaliya wax kale iyana nagu beeri waxaan leeyahay nabadgelyo yaanu leenahay waxaan u leenahay dan haddaan u leenahay sidaan laakiin nabadgelyo ku wajinay Soomaaliland iyo madaxweynaha hadda jooga waxaan u leenahay war waxa naga maqanasi xaqna waan u leenahay waana wada leenahay waxa dalka soo wada galana waan u leenahay waxa magaraysa ka soo wada baxana waan u leenahay taas waxa weeye caynka laakiin ma ogolin buuq iyo qayro iyo nabadgelyo xumo midna ma ogolaanay mana ogolin ilaahayna ha naga hayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أمور محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا أنا عقاش قبل كقبلي كره الله يفدي عقاش قبل كقبلي إحنا عقل كي يبدأ قبل كقبلي وحنا هلك كعدين أريمها صور الغرية أنا كم قلنا مليها هي تيفيدا يعني كهذا أريمها نبذية وشيء مقدسة أو قفك قدنا arrintaasi waa wax aan la gurgurtami karin nabadgelyada waxa la gurgurtami karin oo laga wada hadli karin nabadgelyaduna waxay u tantahay qofka kitaabkeena qoranto Ilaahay baa sheegay oo si walba u qoranto nabadgelyadu waa danteena taas waa qodob kale waxa weeyaan arrimaha soo noqonaya horta qodobkan la yiraahdo Soomaaliland waa qodob dastuuriya qodobka dastuuriga waa wax la iskugu yimiday oo lagu heshiiyay haddii wax la iska la garanayo iyada oo la isku yimiday u balow kala tay karaay qof meel ka hadlay kelmad uu iska yiri ma oran karo midnimadu halkii ay taalay iyo taala tabashada iyo wax weydiisyo sida ay salaadiintu wax u tawdeen bay u tahay oo loo tabashada halkii bay taala oo loo tabariya tu bila buuq oo bila hawlo oo bila rabshadana weeyaan sida ay wadaashu weeyaan tan kale dawladdu waxay mas'uul ka tahay amniga ummadda amniga carruurtayada iyo amniga guudba meesha ayadu de abni ahaan u tagta ama ciidan ahaan u geyso ciidanku cadow soo duulaya ma dadka wax dhibayeen waa inamadeenni kuwii boorma laga qaaday baa la geeyay muxuu ahaayay laascaano kuwii un bay noo soo noqday kuwii gabil laga qaaday la geeyay marka amniga ay hadii ay sugayaan iyagu wax alla wax dhiba oo ay noo keenayaan ma jirto taana yaan dib loo arkin way dawladnimadaba ku salaysan ciidannimada iyo magaraysa iyo arrimaha ku salaysan taasina wax dhibaato aan u maarko waxaan leeyahay waxba ciidanku maruu shaqadiisa dhamaysto hawsha dhamaysto sida uu isagu xeerkiisa dhigayo iyo dalka uga bixi dawladuna waa saas arrinteedu waa muqaddas ta kale gooni goosadka iyo gooni isku taagu wax ma aha qof ku dhawaaqi karo waa arrin guud waa arrin ay Soomaaliland leedahay arrintaasina waxa leeyahay waxba kama jiraan Soomaaliland waan salaamay salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh anigu magacaygu waxa weeyaan garaad muuse garaad ceelaabe jiif caaqilka degmada Lughayana waa wararku waayadan dambe oo dhanba wax dhixay u socdaan aan la garan iyo dhigahayaga ku soo dhacay waxa dhigahayaga ku soo dhacay wax shakhsi ka yimid
waxaan buurnaynna ku taageersan yahay un baan u arkaynay goosigu maaha wax qof keliya uun yidhaah waan goosannay ummaddan oo xukuumad leh oo suldaana leh oo siyaasiyiin leh oo cuqaal leh shaksi keliya uun intuu tuulo tago ma goyn karo suldaankana marka horeba waxaan leeyahay dee qunijeed baa lagu doortay qunijeedna kama fogey waad joogjoogaa isaga intaa baan leeyahay xagga xukuumadda tabashadii reer awdal way haysaa iyaday u taallaa waxay kaga jawaabayso wax cabasho ahoo dambe iyo waxaan wax ku doodoonaynaa midna ma jiro ugamana baqayno shaksi inuu reer awdal gooyo ugama baqayno anagu dee ma ogin dee ninka suldaankii siyaasi maaha oo nin siyaasad ku dagaalamayo siyaasiyoo la yaqaanay maayna waa nin dhaqana wasiir cadhooday maaha oo sirta dawladda og xilligu saldanadda qaatayna dhowaan bayba ahayd sidaa darteed xog badan uu awdal wax kaga sheegto maba hayaan leah wax dhaqan oo heshiis uu la galayna ma jirto isaga soo hayaan leenahay inaad reer awdalun ka cadhootaan u malaynayaaye kamuu cadhoon bay la tahay xukuumad iyo wax somalilan ka dhaxeeye waxaan u malayn inuu cuqaasha iyo dhaqanka reer awdalun buu ka cadhoonayaa baan u malaynayaaye wax mushkiladoo kale ma jirto qolada khaatumana waxaan leehay qolada khaatumana waxaan leehay waar arday saaqiday hadduu inakaaga raaco inakaaga yaroo baxbaranaya hadduu raaco waad ka xumaani baaqay noo soo diraan waan ka xunna waayo way saaqideen run baan sheegaynaa way saaqideen iskoolladii iyo dhakhtarradii nimo qoriya haystaa ku jiro oo xaas kula jira halkan ay waxbarasho u soo doontaan kaalay nala saaqida ha noogu baaqina walaalayaal idinla saaqidi mayno ardaydiinni halkan ay nala joogtaa inamadoyni halkan ay joogaan hablii halkan ay jaamacadda ku wada jiraan carruurtiinni waxa weeye dee wada saaqidi mayne aan kala hadhno taana intaa baan leehay tabashada gadabuursina horaa loo hayaa odayaalbaa suldaanada geeyey xukuumaddu way ballantay ummadda kale ee reer awdal waxaan ugu baaqayaa meel kastay joogaan waryaynaan saaqidi shirkeenna yaynaan carqaladayn shirkeennu shir siyaasadeed maaha waa shir horumar waa shir wax soo kordhis waa shir haddii alla kuu ron yahay dhaqan waxa weeye suldaanka waxaan leenahay shirka wax badan baad soo abaabushay ha carqaladayn baan leenahay kuwa ku taageersanina 5 sano sidaan horumar u samaysan lahayn unbay ka shaqaynayeen oo ka wada shaqaynayeen xukuumadduna way nagu taageertay kaalintay ku lahayd way martay wax qabsi iyo gacmaha is qabsanaan isku ognahay haddaan reer awdalda inaan gacmaha is qabsanno iyaan isku ognahay xilkuna waa meerto wuxuu ahaa suldaanku 7 sano jilibkii xilkan loo hayay Somaliland buu hayay buu ka mid yahay madaxweynaha ka noqday madaxweyne ku xigeen ka noqday sidii lagu xushmeynayay oo xushmee gulnimaha qaadi magacana iska dilin suldaan dhaqan baa tahay inaad geed galo la hoos fadhiisataay waa ceeb ka kugu taageerina waxba kuma tarine waxbuu ku yeelay suldaan soo hoyo iska soo hoyo shirka ka soo qayb gal beelaha gadabuursi waxa weeyaan dee wax fiican hadduu keeno Somaliland ka fiican haddaad hayso oodna tusto wax waa taageero u heli lahaa laakiin ma jirto way noogna waa suldaankana sidaasaan ugu baaqaynaa nabadgelyo inuu iskaga yimaado xukuumadda iyo ciidamadu halkay wax ka jiraanba way tegi
maxaa loo sameeyay ciidanka inay meeshay wax ka jiraan ba tago away ciidamaduna waajibkooda iyaga qabsanaya wixii nabadgelyada ka hor imanaya un bay qabanayaan ma nin kale qaban maxay anaga noo qabsan waayeen wixii nabadgelyada ka hor yimaada ha qabtaan waan la qabanaynaa weli wixii nabadgelyada